السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن داوديال meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay geyiga Soomaaliya macluumaadka aan idin la wadaagi doono waxa qayb ka noqon doona cabsi xoogan oo ka jirta magaalada Hargeysa iyo sidoo kale magaalada Berbera kadib markii la sheegay in Xuutiyiinta Yemen laga cabsi qabo inay halkaas duqeeyaan sida ay tilmaamayaan ila wareedyo lagu kalsoonaan karo Somaliland ayaa dhexda la gashay dhiiqo siyaasadeed oo adag tahay in Somaliland ay si dirqi ah uga baxdo wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa soo saartay bayaan lagu sheegay in lagu taageerayo walaalaha Israel taabadalkeedana looga soo horjeedo Iran afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran wuxuu sheegay in ay ka warqabaan dalalka bariga dhexe ku yaala iyo kuwa Afrika ku yaala oo cadowga garab siinaya kuwa suhnuuniyada ah ee garabka siinaya cadowga Ilaahay iyo cadowga Iran waxa aan u dhigaynaa cashir ayuu yiri afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran Somaliland ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland waxa uu sheegay in ay taageerayaan howlgallada ka dhanka ah Israel oo howlgallada ka dhanka ah Iran oo ay Israel bilowday Mareykankuna uu garab ku siinayo kuwaas oo la sheegay in ay yihiin kuwa ka dhanaadanaha Mareykanka iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka xogaha la helaya waxay tilmaamayaan in inta wixii ka dambeeyay dekada magaalada Berbera habeenkii la joojiyay dhaqdhaqaaqeeda iyadoo sidaas si lamid ah garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa ee cigaal la yiraahdo isna dhaqdhaqaaqiisa si kooban loola socon doono sida ay tilmaamayaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay dhammaan dhacdooyinkani dabcan waxay ku tusinayaan in ay soo degdegtay arrintii la xiriirtay in Somaliland laga cabsi qaba inay weerar ka dhacaan dad badan oo dabcan arrimahan ka faaloodana waxay leeyihiin Somaliland ma ahayn in xilligan la joogo ay dhexda ka gasho xaaladaha bariga dhexe ka taagan maadaama Somaliland ay aqoonsi dhawaan ka heshay Israel dabcan malaha waxaan isdhihi karnaa Israel iyo Somaliland xiriirkooda waxa ugu badan ee laga shaqeynayay waa heshiiskii carabta iyo dhexmaray Israel ee Abraha Accord kaasi oo dabcan dhigayay in Israel hadii lagu soo duulo ay dalalkaasi difaacaan heshiiskaas oo dabcan Somaliland ay qayb ka ahayd waxaan soo xignay dhowr sargaal oo ka tirsan ciidanka militariga jamhuuriyadda Somaliland waxayna qaarkood inoo sheegeen in walaaca iyo walbahaarka la xiriira in laga cabsi qabo inay dagaal dhacaan hadda ay gaartay halkii ugu sareysay waxaana sargaalku hadalkiisa inta uu ku daray in Somaliland heegankii ugu sareeyay hadda ay ku jirto taasi oo dabcan ku tusinaysa in feejignaan dheeraad ah ay ku jiraan ciidanka militariga Somaliland kaliya waxa ku filan Xuutiyiinta oo amar la siiyo inta Iran la isla gaarin Xuutiyiintu waxa ay fulin karaan weeraro cir iyo dhul ah Xuutiyiintu waxa ay saacado gudahood ku burburin karaan magaalada Berbera iyo dekedeeda waxayna saacado ku burburin karaan magaalada Hargeysa sida dad badan aaminsan yihiin dadka ka faalooda arrimahan ama xaaladan la socdaahay waxa ay leeyihiin Somaliland waxay ahayd waxyaabaha noocaan oo kala ah inay ka gaabsato oo ay halkaas uga harto hadii ay noqoto in ay ka hadashana waxay ahayd baa la leeyahay xiriir hoose inay Somaliland la sameeyaan Netanyahu ama xafiiskiisa si ay ugu wargeliyaan inay garab taagan yihiin marka walaaca iyo walbahaarku halkiisa ayuu yahay hadda cabsiduna waa meeshii ugu sareysay waxay ku soo kordha waan arki doonaa gobolka Sanaag baan fiirinayaa deegaano hoos yimaada magaalada Ceergaabo waxa laga soo warinayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u sareeya sida ay tilmaamayaan ila wareedyo lagu kalsoonaan karo dhaqdhaqaaq xoogan oo dhanka ciidamada ah ayaa waxa uu ka jira deegaano fara badan oo hoos yimaada magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo dabcan waxa dega beesha Warsangeli majority-ga ugu badan waa iyaga waxa kale la soo dega dhulbahantaha iyo reeshar Isxaaq saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka Somaliland waxay tilmaameen inay feejignaan dheeraad ah ku jiraan isla markaana ay heegan ku jiraan oo ay iska difaaci doonaan hadii duulaan lagu soo qaado waxay xogo inta ku darayaan in 24 saac la soo dhaafay ay jirtay cabsida la xiriirta in la dareemo isku dhacyo ciidan oo gobolka Sanaag laakiin Somaliland waxa la soo warinayaa inay ka meermeereyso dagaal foolka fool ah oo dabcan ay la gasho
maamulka waqooyi bari ama warsangeliga sababtoo ah somalilan hadda culays waxa ugu filan sida ay dad badan aaminsan yihiin xasaradaha ka taagan meelo ka mid a gobolka gaar ahaanna awdal oo beelaha ciise iyo samaroon hadda la leeyahay waa ay isdagaali karaan oo weli xaajadoodan lama soo gebagabeen sidaas si lamida somalilan awal waxay horey ula dagaalsanayd beesha dhulbahante puntlandna way ishayeen barina waad ogtihiinoo awdal bay xaaladoodu allusaal tagay yacni arrimahaasoo dhan marka laisku soo xooriyo dadku waxay leeyihiin somalilan xilligan kuma degdegi doonto dagaal ay la gasho dabcan maamulka warsangeliga sababtoo ah warsangeliga haddii dagaal lala galo dabcan waxay haystaan cudud ciidan oo aada u xoogan oo aan dabcan layska indhatiri karin oo ah dhinacyada aan soo carabaabay ee dabcan ku lugtale xiisada halkaasi ka taagan sida puntland oo warsangeliga dabcan xiriirla leh waqooyi bari oo warsangeliga xiriirla leh taasaa dabcan waxaa laleeyahay waxay ku kalifi kartaa in ay dabcan xaaladda geliyaan meel aan wax laga qaban karin xogta la helayo sidoo kale waxay tilmaamaysaa in dhowrkii saaci lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee halkaasi ka jira ay sare mareen qodobkeena ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa xildhibaanadii ugu badnaa oo ka tirsan puntland iyo jubbaland ayaa iskaga baxay magaalada muqdisho garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa lasoo werinayaa in mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo deegaan doorashadooda puntland tahay ee halkaasi iskaga baxeen hawadana laga soo celiyey sida ay tilmaamayaan wardegdego hadda soo kordhaya dowladda federaalk soomaaliya ayaana amartay soo celinta xildhibaanada ka soo jeeda puntland oo horey qaarkood oo la safnaa dhanka villa soomaaliya balse hadda la heshiiyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waana dabcan war kale oo ah in xildhibaanada la soo celiyo waa mid saamayntiisa leh isla markaana xaaladda meel kale u rogi kara xasan sheekh maxamuud ayaa dabcan hadda wuxuu la kulmayaa cadaadis inaba aan caadi ahayn uga imaanaya dhinacyo kala duwan kuwaas oo la leeyahay xaaladdu waxay gaartay meel aada halisu ah sababto ah markaad eegtid dhaqdhaqaaqyada socda iyo xaaladdu siday tahay waxay ku tusinaysaa in xaaladdu ay tagtay meel aan waxba laga qaban karin waxaan la xiriirnay villa soomaaliya saan wax uga weydiino ishaynta villa soomaaliya iyo xildhibaanada waxaana villa soomaaliya laga soo xigtay inay xilligan dooneen in ay dhex gasho arrimahan oo dad badan ay aaminsan yihiin in ay villa soomaaliya dagaal ku riixi karto xilligan xasan sheekh maxamuud arrinta doorashada ayay uga dhegan tahay halka mucaaradkuna ay leeyihiin talada dhulka soo dhig waxay kusoo kordha saaxiibayaal waa inoo wararkeena dambe hadday tahay markii kugu horeysay janalkan kusoo biir wararka iyo macluumaadka dabcan aan halkan ku daabacno ayaad heli doontaan aragtidaada dabcan qaybta komatiga inoogu reeb sidaa u aragtid somalilan inay ka badbaadi karto duqeyn uga iman karta xoutiyiinta yaman soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan